Madaxweynaha Mareykanka Mr. Donald Trump ayaa booqasho rasmi ah ku jooga wadanka Great Britain. Casuumadan uu ka helay boqorada wadanka UK waxaa ku heliyay qoyskiisa iyo xubno ka tirsan dowladda Mareykanka, iyadoo booqashadu ay qaadan doonto muddo 3 cisho ah. Madaxweynaha Mareykanka qaabka uu safro way ka duwan tahay madaxweynayaasha kale ee adduunka, iyadoo abaabulkiisa bilowda dhowr bilood inta aanu safrin. ugu horeyn, madaxweynaha Mareykanka wuxuu soo raacaa mid ka mid ah labada diyaaradood ee isku mar soo duula ee Air Force 1 iyo Air Force 2 oo ah diyaarada nooca militariga ah ee Boeing VC-25 oo la mid ah Boeing 747 oo waxyaabo aad u fara badan laga bedelay. diyaaradda madaxweynaha Mareykanka waxay ka soo degtaa garoonka Stansted Airport oo caasimada UK ee London u jira 50 kilomitir dhanka waqooyi. kadib madaxweynaha Mareykanka waxaa soo galbiya diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Marine 1 iyo Marine 2 iyagoo si toos ah u taga mid ka mid ah guryaha boqortooyada ee Windsor ama Buckingham Palace oo ku yaala bartamaha magaalada London. gawaarida mar walba la socota madaxweynaha Mareykanka waxaa ka mid ah midka joojiya ama jam ka dhigan nooc walba oo lalis ama communication ah xilliga uu marayo wadooyinka London iyo magaalooyinka kale. gaariga limousine-ka ah ee gaashaaman ee loo yaqaan The Beast waa kan uu ku safro madaxweynaha Mareykanka. qiimihiisu waxaa lagu qiyaasay $1.7 milyan. waa gaari leh nooc walba oo difaac ah haddii ay ahaan lahayd weerar bistoolad, qori, baasuuke, kiimiko iyo nooc walba oo bam ah. madaxweynaha Mareykanka waxaa safarkiisa mar walba ku weheliya shakhsi wada 2 boorso oo ay ku jiraan koodka lagu amro hubka nukliyeerka ah haddii uu dagaal dhaco. shakhsigan ayaa mar walba ka agdhow madaxweynaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka gaarigiisa mar walba waxaa hareeraha ka socda ciidamada ilaalada qaaska ah ee loo yaqaan US Secret Service, iyagoo wata hub qarsoon oo mar walba ay amro qabaan inay isticmaalaan si ay u badbaadiyaan madaxweynaha. diyaaradda Air Force 1 waxaa ku dhex dhisan xafiisyo, qolal jiifa, kuwa lagu cunteeyo iyo kuwo kale oo loogu talagalay martida iyo warbaahinta. Air Force 1 ayaa loo yaqaano White House on the Air, waxayna awood u leedahay inay iska difaacdo nooc walba oo gantaal ah. inta uu ku sugan yahay wadanka UK, madaxweynaha Mareykanka waxaa mar walba dusha ka ilaaliya diyaaradda qaaska ee la yiraahdo Osprey MV2 oo ay saaran yihiin hub casri ah, ciidanka Special Forces iyo qalabka warlaliska ee casriga ah. qaabka madaxweynaha Mareykanka loo galbiyo waa iyadoo ay ugu horeeyaan gawaarida biliiska wadanka martida loo yahay, 2 gaari oo limousine ah oo isu eg mid uu saaran yahay mid kale, ciidanka ilaalada ee Secret Service, dhaqaatiirta iyo la taliyaasha, gaari maamula socodka madaxweynaha, ciidanka qaaska ah ee difaaca, ciidamada sirta, gaariga ka hortaga kiimikada, warbaahinta, ciidanka ilaalada dhanka dambe, ambulance iyo gaariga qaaska ah ee satellite-ka. safarka madaxweynaha Mareykanka ee 3 maalmood uu ku joogo wadanka UK waxaa ku baxaysa lacag lagu qiyaasay $75 milyan oo ay bixinayso dowladda UK, taasoo inta badan ah dhanka nabad sugidda.